waxaa magaalada Den Haag ee dalka Netherland lagu soo dhaweeyay xildhibaan Cumar Shariif Jeeg oo socdaal ku marayay dhowaanta dhowr dal oo ku yaala midowga Yurub. soo dhaweyntan oo lagu qabtay hool ku yaala magaalada Den Haag fiidnimadii maalintii Sabtidii ee 4 bisha February sanadka 2023. xafladan oo lagu furay aayado Qur'aan ah oo goobta ka akhriyay Sheekh Iker Sheekhul Beledka magaalada Den Haag ayaa ku bilaabantay jawi aad u degan. bulshada Soomaalida ee ka soo qayb gashay soo dhaweynta xildhibaan Jeeg ayaa ka kala yimid dhammaan gobolada dalka Netherland. waxaa si weyn uga muuqday beelaha banaadiriga ee xildhibaan Cumar Shariif Jeeg uu ka soo jeedo inkastoo aan loo kala hadhin soo dhaweyntiisa magaalada Den Haag. waxaa hadalka qaatay qaar ka mid ah mas'uuliyiin hore oo ka soo qabtay gobolka Banaadir xilal kala duwan iyo mas'uul ka tirsan dalladda guud ee jaaliyadda Soomaalida dalka Netherland Cabdulqaadir Cali Nuune. waa loo wada dhan yahay guddoomiyaashii madaxdii waddanka Netherland iyo madaxdii Soomaaliya kulli intaba way nala joogaan. waan ku faraxsanahay ama ku hadlay magaca jaaliyadda guud ee Soomaalida dalka Holland. waana dhaqan looga bartay haddaan nahay dadkeena Holland degan inaan madaxda soo dhaweyno sida xildhibaan Cumar Shariif Jeeg. aan ognahay sidoo ku soo galay siyaasadda wanaageeda ilaa heerku ka soo gaaray. marka hore waxaan ku leenahay soo dhawow caawa waxaad joogtaa waddankaagii labaad dadka joogana waa dad Soomaaliyeed oo is jecel. annaga waxaan kaga duwanahay wadamada kale waxa la yiraahdo qabiilka ama 4.5 jaaliyadaheena looma dhiso. taasna waxay muujinaysaa caawa ujeedada kala duwan ee ka kala yimid waddanka dhammaantiis inay halkan xaadir ku yihiin. aniga 13 sano ku soo dhex jiray xamar waxa kaliya oo aan ka hadlayo waxa waaye dhulum ayaa jiro. dhulumaa dhacay waa la isdulmay weli lama xisaabtamin weli lama wada hadlin weli la isma cafinin. shariifka hadda waxaan dhahay hadda maxaa la yidhahdaa ogtahay aniga waxaan hadalkayga hadaadka waxaa ku jirtay cadaalad leh anaga cadaaladaan u baahannahay dadka dad shaqaysanaya waaye ma dhahayno hadda gudoomiyaha gobolka maraan London aan wada imaanay London ashraaftii iyo dadkii wuxuu dhahay dadkii dhammaanba oo xamar soo dhiseenbo injineeradii iyo waa kuwan malaafduuba see loogu celinaa xamar xildhibaanka fariinta saa horta fariinta hadda messageka kulankan adaa iskale baroni kulankan adaa iskale fariinta qaad reer magaalada caasimadda Muqdisho marxaladii soo martay waa la wada ogyahay maantana sida ay tahay waa la ogyahay. aniga youtube-da haddii laga raadiyo waa helaysiin dhulgariir waxaan dhahay dhulgariir maa ka dhacay Soomaaliya ma ka dhicin. waa magaalo burbursan oo hadda maxamuuse wuxuu tilmaamay waqti oo biyo iyo oo aan magaalada aniga markaan tegahay waxay ahayd reer waqooyi waxay dhahaan kudaafad wasakh oo urayso ay ahayd. at least waa nadiifinay xamurweyne waxay ahayd meel oo ani marka waxaan nafteeda aan qanciyaa waxaan dhahay sadaqa jaariya ku socota xamurweyne lagu shaqaysanayo maanta. dhankiisana xildhibaan Jeeg ayaa Soomaalida dalka Netherland uga xoog warramay xaaladda dalkooda hooyo waxaana hadaladiisii ka mid ahaa. maanta waxaan ku faraxsanahay inay Soomaali meeshaan uusan qofna ka maqneen Soomaaliyo dhan ay wada dhan tahay ay wada imaaday iguna soo dhaweysay oo idinkaga mahadcelinaa dhammaan gudoomiyaha jaaliyadda iyo Soomaaliya dhan oo halkaan fadhisa. marka labaad to waddankaaga ah Soomaaliya muddo ayay dhibaato ku jirtay oo ogtihiin xogaa shalay mar aniga iyo sheegi kariyo waxaan tagnay baarlamaanka halkaan aqalka sare gabar nowada waxay tiri annaga waddankeena tiri prime minister iyo madaxweynaha ma xukumo shacabka xukumaan. sababtoo sax waaye dowladnimada lagu sheegay shacabka waaye hadduu shacabka habeenii maalin ku seexdo inuu asaga dalkiisa ka fikiro qofka madaxda wuxuu qaban karo male hadduu ordo hadduu si kasta sameeyo bulshada laga rabaa inay magaaladooda dhistaan amnigooda ka shaqeeyaan. hadda sida ay howsha u socoto Soomaaliya waa ogtihiin dagaalo badanaa lagu jiraa sida hore way ka fiican tahay. horta in la isniijibiyo ma fiican badanaa annaga hadda Soomaalina dhinaca sharta aan badsanaa dadka sharta jecel camal in maanta dhan la dhawaa kana amaanka xumaaday kaasaa xumaaday intaa xumaaday wax xun ma jiro adduunka meel waxba ka dhaceen ma jirto. nin kastane asagaa waddanka wax ka qaban kara idinka mar kastaba ama passport European wata ama wax kasta wata dhulkaaga leeyahay
dhulkaaga hooyo waay mar kasta kama maarantid waxa waaye waxaa la rabaa caruurtaada intay nabad guur ku dhici lahaa inay luqadii si fiican u bartaan Soomaaliga in mar aad keentaan fasaxyada wadanka inuu wadanka asagoo dhan ma wada qaribno xaafado waxa arkayaan weligood waxba ka dhicin meelaha wax ka dhacaan oo meelaha adiga markaas waa ogtahay dhibaatada way iska badan tahay waxa waaye laakiin dhibaatada hadda marka ka dambayso way soo afjarmaysaa insha Allah mar dhowna waa arki doontaan dawladana shaqo badan ay haysaa saraaxa qofku waxa la rabaa in shaqadiisii loo qiro dawladda way shaqay haysaa ayadana xoogaa yar dhibka in oo laga dhaafo dadku waa dareemaynaa oo waxa waaye maanta oo dhan Soomaali inay is haysatay jecesha meelaha ay ka qaldan tahay anoo xildhibaan waxaan jeclahay inaan soo istaago waxa sameeynaysan qalad waay qofka ha kugu nooc haduu rabo laakiin inaad dhahdid warniyaho waxaan aad sameynaysid ama waxaan aad ku jirtid qalad waay jooji haduu madaxweynaha dalka ugu sareextay waa inaad qaladkiis u sheegi kartaa prime ministerka waa inaad qaladkiis u sheegi kartaa ninka xildhibaanka xataa haduu qaldan yahay qaladkiisa waa in loo sheegayo intaas ku qaldantahay in la dhaho ugu dambeyntii dadweynaha ayaa fursad u helay inay su'aalo weydiiyaan xildhibaanka taasoo uu si waafiya uga jawaabay su'aalahoodii xildhibaan Jeeg waxaa kale oo noo suurta gashay in aan wareysano qaar ka mid ah aqoon-yahanada Soomaalida ee xafladda ka soo qayb galay waxaana hadaladoodii ka mid ahaa xildhibaan Cumar Shariif Jeeg saad la socotaa xildhibaan qaran wuxuuna ku yimid booqasho shaqo oo wadanka Holland ah jaaliyadda Soomaalida ee Holland khaasatan magaalada Den Haag ee Hague ayaa lagu casuumay si wanaagsan ayaana loo soo dhaweeyay waxaan isugu yimid ummadda Soomaaliyeed qaybo kasto kala duwan ayaa ka soo qayb galay rag iyo dumarba waxayna xildhibaanka kala wareysteen xaaladda guud ee wadanka ka jira iyo soo dhaweyntii ku saabsaneed sida jaaliyadda Soomaalida Holland u dhisan tahay iyo sida ummadda Soomaaliyeed u midaysan tahay طبعا dhaqan oo waxaa jirtay madax markay timaado oo anigaaba kamid ahaa dadka soo dhaweynta oo diyaarin jiray oo maxaa la yiraahdaa si Soomaalinimo loo soo dhaweeyaa dadka qarannimadii waxaan xasuustaa 2000 markii xukuumaddii ugu horeysay ee la dhisay sheekh Cabdi Qaasim xaflad weyn loo qabtay magaalada Den Haag dhaqankaas waa jira iyadoo mararka qaarkiisna haddana wax la kala jiidjiidanayo laakiin jaaliyadaha kale waxay kaga duwan tahay ra'iisul baarlamaanka jooga ayaan dhaweyto si sharaf laha loo soo dhaweeyay oo mas'uuliin kala duwan marka taasi Hollandiisna ma ahane Soomaalinimada ku xoogan Holland talada marka la yiraahdana waxaan leenahay oo Soomaali waxa wali u harsan heshiisiina u harsan Soomaaliya dhulka waa ka badan yahay dadka culumadii waa hadleen waxaan leenahay ganacsatada ha hadasho ardayda ha hadlaan meel in la isaga soo wada jeesto hadda markaad dareemaysid ama arki kartaanba qarannimadii yaa naga maqan annaga oo markaa fiiriso qaab dhismeedka oo hadda ama Soomaaliya oo dhan ay u samaysan tahay waxaa arkaysaa meel oo 7 madaxweyne leh 7 state leh oo waliday ay ka mid tahay marka la isku soo 40 sano hadda chance waxaa la haystaa in wadankan lagu xoreeyo Soomaalida ay soo dhawaato darajada waa intaas in dadkay rabaan markaas inay doortaan laakiin wadanka ummadda waa ka badan yahay dalkaadi ahaan waxaa la yiraahdaa dharka ahaan dhaxan kaama reebo dalkaadi ahaan saad dareen ku joognaa marka wuxuu ku baraarujinayay wardadyahow dalka idin baahan waqtiga ha kullu minina meeshan waxa yaab leh maalintan soo dhaweynayna aeroport aan ku soo dhaweynay central station xiriir ya qaboob way jaakooyin aad noo tabiseen marka ujeedada uu lahaa waxa weeye war dhul oo vitamin D ku batay cuntadeedii biologisch bio ah oo kiimik iyo waxaas ku jirin ayaad haysataan meeshaan isku dhibina marka taariikhda carabta nafsadooda ka sheekeynayaan niman Sacuudiina niman Khaliij ah oo ka hadleen waxay dhihi jireen ayna dhahaan haddana zakada Soomaaliya dhulkeena la siin jiray dad waxaanu ahayn deeqsi ah oo ma taqaan zakada Soomaaliya inay Soomaali ka badatay ayaa carabta aanu siin jirnay annagoo islaamka kor u qaadayno islaamkeena waa la socotaa annaga kumaanan dagaal lagulama islaaminin seef iyo waxyaalo kale marka waxa waaye tan maanta aayadan tusaaleynayso waxa waaye libaas aljuuci walkhawfi war dhul baa ilaahay la siiyey waay aan u baryoonaan leenahay baahanna haysaa ya waay aan u leenahay faqriyaan war dhul baa ilaahay na siiyey dhulkeena haddaanu ka shaqaysiino wallaahi waxaan aaminsanahay inaan carabta cunto siin karno
rajada mataqaanaa maalinba maalinta ka dambeysa way soo yara fiicnaanaysaa inkastoo mataqaanaa wadanka weli ay iska jirto cadaalad daro oo aan la gaarin mataqaanaa midda la doonayay laakiin waxaan rajaynaynaa mataqaanaa in marba dowladda ka dambeysa ay kasii fiicnaynayso nabadgelyada iyo cadaaladda dadka ay doonayaan waa labada wax ee ugu muhiimsan ee dadka mataqaanaa ama jiilka soo koraya ama generashada naga dambeeya ay ka raja leeyihiin marka waxaan rajaynaynaa mataqaanaa dadaalkaas inay meeshaas ay kasii wadaan boqoshadeeda Netherland kalimaha Euro dhan inaan ku wareego laakiin Netherland waxaan kasoo bilaabay Talyaaniga Faransa waxaan hadda imaaday Netherland waxaan rabay in Soomaali weyn aan isku macnaha keeno oo aan u iftiiniyay in ay wadankooda sida wadanka ay joogaan oo kale ay macnaha nashqadan ay dalkooda ku biiriyaan ama ay juhdi geliyaan maadaama hadda amniga marka dambe uu si fiicnaanayo in ay bulshada dadka qurbaha ku noolaa ay aan u iftiiniyo inay dalkooda jeclaadaan dalkooda imaadaan dalkooda ay wax ka qabtaan intaas ani muhiimadeeda ahayd marka aad waxaan ku faraxsanahay Soomaali midaysan oo hal ah oo aanan waxba khilaaf iyo qabiil iyo balaayo ku dhex jirin aan la kulmay ilaahana ma haddaas iska leh iyo dadkii soo abaawalo inta waa ugu mahad celinaa inta aanan imaanin anigu sideeda waxaan aaminsanaa qabaa'ilkan Soomaaliya la isku haysto iyo dhibka Soomaaliya ka jiro in ay dadka qurbaha jooga ay aad ay u abuuraan laakiin dad aanan wadcigaas oo dhanba la soconin halkan joogo wanaaga jecel taasaan ani dhiirigelisay laakiin awl waxaan naga dhacsanaa la dhihi jiray dadka qurbaha jooga ayaa wadanka qariba laakiin dadka gudaha jooga wadanka qariba intaas hadda ii muhiimsanaa inaan ogaado nin kasta wuxuu ka baqaa labada shin uu haysto markuu meel maal geliyo juhdi uu geliyo uu qarash geliyo daqiiqada gudaheeda in ama qarax ama meeshaas ay burburto dad badoo ganacsato oo qurbada ka tagayo oo dhibaatadaas ku dhacdana way jirtaa oo hantidooda la burburiyay oo dhibaatadaas laakiin waxaan rabnaa in aan garanti insha Allah aan siin doono muddo sanad kale hadduu Ilaahay yiraahdo in ay Soomaaliya oo nabad ah la maal gashan karo dhaqaalana la gelin karo insha Allah indhiinaan ku arki doontiin haddana dadka dibadaha jooga waxaa jira dad riskiga aad ugu bareeray oo maal gashto oo wax ka dhex qabtay oo business ka wato marka dhinac kastaba ha ku joogaan waa dad diyaar u ah khasaare iyo faa'iido marka businesska noocaas waa laakiin insha Allah nin kasta gurigiisa waa iman karaa uu dhisan karaa nin hadda ka xoog badan ama qabiil wax u dhimi karo way dhamaadeen waxaas Ahmed Shanle Amsterdam